haddana dumarku way heesayeen durmaan bay tumayeen ma maqlaysi wixii heesay ay ku heesiyeen waa geesigii oo godob lahay waa geesigii oo godob lahay ay lahay timir laf baa ku jirta marka halka bismillaahir rahmaanir rahiim maanta way taariikhdu tahay 20 dabayaaqadiisii waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrin bariyaha wasiidada iyo baraha bulshada dhexmeerayay oo ku saabsan diyaaradda saaran Hargeysa korkeeda meesha loo yaqaan Khayriyada diyaaraddaas oo ahayd diyaaradihii ciidankii Soomaalida haddana ugu dambeystii markii dambe uu soo qaaday maayirkii dawladda Cigaal Hargeysa xukuumayay oo loo jiray Cawil diyaaraddaas oo ahayd diyaaradihii ka qayb galay dagaalkii Sideetamaadii waxa uu soo saaray halka Khayriyada maayirkaas dibadna diyaaradii wuxuu hoosteeda iyo sawirkeeda ku sameeyay farshaxan cajaa'ib oo ka turjumaya dhibaatadii markaa taali iyo sida sawirku ahaa runtii waxay ahayd dawlad iyo dadkeedii oo islaynaya yaani dumar lamaan iyo dad shacaba iyo ciidamo iyo dabaabado iyo qoriyo islaynaya ka muuqda waxana ahayd sida ay markaa xaaladdu ahayd waxana laga yaabaa dagaaladu waa laba nooc oo midna labada dawladood hadii laba dawladood ka dhacaan يعني military ba islaayay xaalad caynkaasi kama muuqato laakiin marka dadka iyo dawladeedu islaayaan sidaasay noqotaa waxaanay dagaalka noocaas ah sokeeyuhu oo ku dhacaa laba arrimood miduu toora weeyaane ama dawladdaasa waxay noqotaa dawlad cadaalad darro iyo musuqmaasuq iyo qaraabakiil markay samayso baa dulmigaas qarxay markaas ay dadkeeda iska hor yimaadaan taa uu ku dhacaa tu labaadna uu ku dhacayo in saraakiisha iyo siyaasiyiinta dadkaasi ay soo adeegsadaan dawlada shisheeye dibadna ay dadka intay soo dhex galaan markaa dawladda iyo dadkuna markaas saas ugu dhacaan si kastaba ha ahaatee dagaal sokeeyay sida idinka muuqata diyaaradda hoosteeda ayuu yahay inta markaan ka gudbo dadkan bini'aadamku inay xasuus sameeyaan oo wixii soo maray ama ay aqliga ku hayaan ama ay sawirka ku hayaan waa mirdow oo wixii mushkiladna ay ku xusuustaan oo ka baydaan wixii samaana ay ku leexdaan waa wax aqligu ogol yahay waxaan leeyahay waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqaya dadka Soomaaliland beelahooda kala gadisan way cawdaan waxaanay ka cawdaan taariikhda la soo maray bay cid walba soo cabataa cidina hoos bay u cabataa cidina kor bay u cabataa cid hoos bay u cabataa dadka beelaha darifyadu arinta hoos bay uga cawdaan markay xasuusanayaan beelahan beesha dhaxana iyadu cabashadeeda kor bay u qaadayaan marka roobku doo hadii ay lafo ama wax qalfoofo hadaayo mushkiladaha ay ku xasuustaan ay arkaan saxaafadaha iyo wargeysada iyo ayaa la keeno aad buu bumburiyaan xataa TV qaranka la keena laakiin dadka darifyadu iyagu hoos bay arrinka u dhigaano kor uma qaadaan waxana haboon mar hadii dadku saa u cabanayaan adiguna aad nin mas'uul ah oo waayeelaho waayaha wadankan wax badan u soo joogayna aad tahay inaad inta aad joogto ay cabashadu dhamaato ama iyadoo cabashadu dhamaato aad madaxweynaha siyaad ama iyadoo cabashadu dhamaato aad madaxnimada ka tagtid waxa haboon in cabashada dadku ay kala cabanayaan ay qolana hoos u cabanayaan qolana ay kor u cabanayaan aad dhamayso waxaad ku dhamayn lahayd oo anigu oran lahaa yaani inaad samayso maxkamad dib u eegistii dagaaladii soo dhacay taasi caalamka way ka dhacdaa waxay ka dhacday qabaylkii Hutuuga iyo Tuutsiga loo jiray markii ay aad sagaashameeyadii isku xasuuqeen markii dambe haddana geed hoostood baa la keenay waa kuwii yaani iska cafiyay waxa kale oo dhacay meesha la yiraahdo South Africa yaani cadaanka iyo madowga markii ay isleen jireen muddo badan bay isleen jireen dabeetana Mandela markii uu qabsaday wuxuu sameeyay maxkamad la yiraahdo Turxaan Reebka oo bilaad dadku ay markaa ku cawdaan حتى ANC دي لفتي قاربة أيها هالك محكمة الله كيني جبدي ANC جاهيد وحكمي هاي دتكي هال حبنية هالكالا كيني حاس كي مديلا أو مركاو يسوق مدحوينها وسير كالدلحيس كاهي
ayaa haddana maxkamadda la keenay runtii dadkaasi way kala garnaqsadeen way kala qanceen way kala bogsadeen dabeetana way iscalool baadheen sidaas yani haddii ay xataa adiga ku soo galayso oo ay arrinkaasi adiga ku soo galayo ama ay cidi kaa caban lahayd inaad qancisaa habboon adigu haddaad cid ka caban lahaydna inaad qancisaa habboon maxkamaddaasi waa inay noqotaa maxkamadda Soomaaliland oo dhammi ay ka wada qayb gasho dabadeetana ka madax bannaan xukuumadda arrintaasi waxay noqon lahayd arrin aad taariikh ku yeelato oo aad dhamayso ta kale waxa jirta yani dagaaladu ay maxkamaddaasi qaadaysaa waa kala laba nooc oo dagaal ciidan iyo ciidan iska hor yimid taasi mushkilad ma laha ama jabhad iyo jabhad iska hor yimid laakiin dagaalada aan sheegnaa in laga bogsado ama wax la iska yiraahdo waxa weey dagaaladii sida dadban la isku laayay way yani xasuuqii meelihii maxaan ku raadada berbero oo kale burco oo kale hargeysa oo kale xasuuqii asramtu dila iyo boorama ay u geysato oo kale waxyaabaha dadban oo kale in laga qanco wax la iska weydiiyo oo dabadeetana dadkeen waa dad wanaagsan oo runtii kolkay isku garnaqdaan ay isku qirtaan way isku soo dhawaadaan in arinta sidaa aad u dhigto ayaa wanaagsan madaxweyne aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa inaad sidaa yeeshana runtii aad bay u wanaagsan tahay intaa markaan ka gudbo يعني dadku siyaabo kale ayay isugu gudbiyaan ama hadalkooda Soomaalidu warka waxay isugu gudbisaa maansada isugu gudbisaa sida gabayada geeraarada heesaha yani maalid berigi dhaweeyay socodkaagii ugu dambeeyay gobolada galbeedka aad ku timid gaar ahaan gobolka Awdal kadinka laga soo galo gobolka Awdal ee dila markaad soo marisay wadogay dadku sidii fiicnayday ku soo dhaweeyeen iyo kaarbadkii casaay ku dhigeen haddana dumarku way heesayeen oo durmaan bay tumayeen ma maqlaysi wixii heestii ay ku heesiyeen waa geesigii oo godob lahay waa geesigii oo godob lahay ay lahay timir laf baa ku jirta marka madaxweynaha arrinkaas u dhamayso ayaa aad iyo aad wanaagsan waanad mahadsan tahay adiga intaas baan kuugu day lahaa waxa kale oo doonayaa inaan u baaqo injineerka diyaaradda aan ka soo sheekeeyay ee ka shaqeynaya ee Hargeysa jooga imiga waa balaanka kale u sameeyay balaankii cawil u sameeyay ka bedelaya waxaan injineerka ugu baaqaya waxaan u hayaa laba mashruuc oo si ay taariikhda Soomaaliland u dhameystiranto dila iyo aan ka sameynayna boorama labadaasi waxa weey xasuuqii ay sanamtu ay u geysatay boorama iyo dila in laba taalo laga sameeyo yaano xaafadaha dila xaafada kamid ah waxa magacooda la yiraahdaa Mujaahid Umar Maxamuud Kadleeye Umar Kadleeye iyo Mujaahid Cabdi Ardaale xaafadaha ayaa taalo laga dhisayaa booramana waxa laga dhisayaa waxaan rabnaa inaan taalo ka dhisno lacagta qadaraaska waan guntanahay inaad timaado oo aad balaan gareyso oo aad qiimadana noo sheegto adigana kuugu baaqi lahaa waana ku salaamaya inta markaan ka gudbo waxaan u gudbayaa maayirka magaalada Boorame runtii maalin dhaweyd baan doonayay oo aan maayirka doonayay si aan waraaqa noogu saxeexo inkastoo aan isweynay ayaa waxaan tagay rays dibadna waxaan ku arkay gaari aad iyo aad u qurux badan markaasaan ku war gaarigaas oo inta la maydhiyo daaqadaha la kala baxay daaqadaha la furay oo yani uunsi iyo wax lagu shiday markaasaan ku war gaarigan yaal markaasaan maayirka Allahu akbar markaasaan watalo wadaaban lahayd magaalada u socday inta kullay maayiradu way maxaan ku leeyahay gabiile iyo berbera iyo Hargeysa iyo Boorama maayiradoodu waana kala qurux badan yihiin magaalooyinkoodu way kala qurux badan yihiin oo de markaad eegto maayirka Hargeysa iyo ka Boorama way gawaari qurux badan yihiin laakiin ma magaalo qurux badan laakiin maayirka gabiile iyo maayirka berbera iyaguna way gawaari qurux badan yihiin magaaladooduna way qurux badan too dadku nin iyo xoolo isku eegaadaan ba wanaagsanay isagana waxa kale oo ugu baaqi lahaa maayir baa tahay nin mudakara tahay nin de mutacallima tahay waxana haboon ninku inuu mar haduu dhalinyar yahay taariikh ka tago berigii ay sanamtu soo gashay waxa maayirkii magaaladan oo loo jiray Allahu naxariistay Maxamed Xasan Maafo xaaskiisi
xaaskiisii iyo ubadkiisii iyo ehelkiisii iyo isagiiba isagoo ka cararaya ee sanamtii magaalada soo gashay madfac baa ku habsaday isaga iyo xaaskiisiiba halka siilada xoolaha lagu iibiyo wali haddaana meel ku aasiya lama garanayo waxaan ka codsan lahaa inaad u dhisto taalo maayirka waayo maayirku magaalada xaq buu ku lahaa magaaladuna maayirada xaq bay ku leedahay marka taariikh ka tag arintaas aan adigana kuugu baaqi lahaa dhammaanba wixii dhinaana ama dheeraadna dadka waan ka raali gelinayaa saasaan ku soo gabagabaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh